Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaday daawadayaal meel kastoo dunida guudkeeda ka joogtaan maanta waxaan idiin soo gudbinayaa xalqad ka mid a xalqadihii barashada luqadda Jarmalka. Haddaba asxaabteeda qaaliga ah waxaan idiin sheegayaa qodob yaro muhiim ah in luqadda Jarmalku xoogaa way iska adag tahay marka xoogaa la micnaynayo maxaa yeelay luqadeena Soomaaliyeed waxaad moodaa marka lagu sharaxayo luqadaha kale inay xoogaa yara kakan tahay ama yara adag tahay. Sidaa daraaddeed waxaan idinla wadaagi doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo inaan eraygii iyo hadalkii iyo micnayntii iyo sawirkii aan isku dul saaro si aad wixii uga bogataan una fahantaan. Waad mahadsantiin. Fadlan intaynan u guda gelin casharka haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh riix bottolka ama jaliska yar si ay kuu soo gaarhaan mar kastaba barnaamijyadaan soo gelin lahaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Waad mahadsan tahay. Qaybin yaryarayn qaybin yaryareed iyadoo laga dhigayo wax yaryar khudradda ama baradhada ama kaarooga oo kale. Giisan biyo ku shubid beeraha kalena waxaa la yidhaha giisan waraabitaan bay noqonaysaa. Giisan waraabitaan ama ku shubid biyo shay aad walaaqayso. Faquuqan fequuqan walaaqid bay noqonaysaa. Fequuqan walaaqid fequuqan kuqs baqaatin hilib shiilis ama waxa la shiilayo oo kale. Kuqs baqaatin shiilis ama wax la dubayo oo kale. Ausrulen shay la kala bixinayo sida daqiiqda saamusaha laga sameeyo. Ausrulen shay la kala bixinayo sida saamusaha marka la sameynayo ama sabaayadda oo kale. Ruuran waa walaaqid. Ruuran walaaqid. Ruuran walaaqid. Bakin waa marka shayga keega oo kale la moofaynayo shay la moofaynayo. Bakin shay la moofaynayo ama la dubayo. Im oven baqaatin waxa weeye shay la shiilayo iyadoo lagu shiilayo dab iyo wixii la mid ah ama mashiin. Im oven baqaatin.